إله عقلك إنه يسوع لي تذكر عقلك ودي ورميت كان كينا ينكي دلي مميت كان نكي دلي صوّده مميت كان نكي دلي وحكوا إنه شيء مميت كان مية وحنا ورمي النجا إن الميت هالك هاي سنة أنا نكي دلي هلا كانوا ميت كان كوه سنة يا وبهدل ميت كي بهدل كتاي دتك هيستي بهدل كتاي ما أنا فاهم سنة دتك قف مؤمن ودين تي أهل خيره وهالك على الجوه هيستو وخير كي يا جندي يرديه إلهي وهل الله قبره كهل الله على جهر هيو ودك دحيس الجوه هيستو سو لقى مجل المركع حق الدراسة لقى مجل لا فخير تقدمونها إليه النبي صلى الله عليه وسلم خير بأهر مرنا سنة وحق در سلامة ميت كأن الله هيو ولا فائدة وجرته dadkuna ma fahansana qolada faa'iido ugu jirto waxa weeye waa nimankan dhalinyarada iyo qoryaha wato jaadkana cuna sharaabana nimankaas faa'iido ugu jirta faa'iido ugu jirta markii nin reeraha la dilo waxa la aliyo wixii waxay cunaan waayo jaad waayo meel istaagaan waayo ninkan ay suwar ka qabanayaan markay ay suwar ka qabtaan waxay dhahayaan la aasimayo markii la yiraahdo la aasimayo oo ay reeraha ka qabtaan waa la ordayaa waxa leeyahay nimankii meydka hayay jaadkoodii hal keeno jaadkoodii sharaabkoodii cunadoodii halkaas lagu keenaya soo xaqiiqo ma xaqiiqo sax weey maalin labo saddex waxay haystaan intay meydka haystaan sharaabkooda jaadkooda cunadooda waxaasoo dhan banaanka weey taas loogu wadayaa iyagu marka ujeedada ay rabaan hadii laga yeelaa bil way haysan lahayn xataa waxba kama gelin inuu qurmo inuu duldilaaco waxba kama gelin maada iyagu say isleeyihiin faa'iida u socoto wixii ay meelaha kale ka waayeen iyo say isleeyihiin busaaradii haysay halkan waxay uga heleen nafci halkaas isa uga haysaan waa inaan fahanaa mawduucaas hadhowto khasaaraha imaanaya iyo waxyaalaha aan laga fiirsano dadku ka fiirsano meesha imaanaya hadhow markii ninkii la aaso markii maalmo la haysto qaar baa toddobaadii la haysto wax reer gaar ku amaaha reer wax gaar ma reer magaalada degan oo aan meyd inta qaadan ayaan haysan inuu kuma jiro odayaal iyo cuqalo iyo salaadiin iyo madax iyo reer kasta wuxuu salahayn lama arko inta waa dhooban yihiin reer aan meyd haysan ayaan dhanna inuu kuma jiro waxa magaalada degan oo muddo uusan gaaro u saarnayn markaas khasaaraha imaanaya dhibaatada imaanaysa waxa waaye hadhow markii xoogaa laga qaato meydkii oo xoogaa laga baxsho yaa waxa la oranayaa qarashiyaadkii ha laga jaro ayaantii la haystay dhowr kun oo dollar baa laga jarayaa dhowr kun oo dollar maxay ku baxayaan waa kharashka ayaanta baxay dhowr kun kama yara cushur meydka wixii laga qaatay 10 meelood oo meel 3 meelood oo meel wuxuu u noqdaba waxaas baxaya marka meydkii uma fiicina oo sida ahadiisa dambe aan ku cadeyn doono shariicadeenu waxay ka qabtaa arki doontaa innagii inoo ma fiicino dhaqaalaha in kaga baxaya mashaakilka kale iyo dhibaatada ka imaan bal yoo faa'iido ugu jirta aan isweydiinay waxa weeye dadka waxa moodaa aqligoodii inuu xawilan yahay meel kale ku xawilan yahay ilaahay aqliga noo soo celi dadka aqligoodii war meyd kaana keenaya ninkii dilay meyd kaana ninkii dilay soo wada meyd kaana ninkii dilay wax ka oo inoo sheegay meyd kaan miyaa waxay noo warramay annaga inaan meyd halka haysano naana ninkii dilay hal keeno meyd kaan ku haysanaya waa bahdil meydkay bahdil ku tahay dadka haystay bahdil ku tahay mana fahansana dadku waa sharaf dhac meydkay sharaf dhac ku tahay kutubu markay ka hadlayaan xurmada meydka waxa kamid in la dedejiyo hadii la dedejin waayo xurmadiisa meel looga dhaca waa la ihaanaysay meydkaas waa la bahdilay bahdil waayo yani ihaanaysu meydkaas waa la lama ixtiraamin waa la bahdilay waxa haysana waa bahdilan yihiin waxa muhiim ah inaan fahanno xaqiiqada jirta waxa muhiim ah inaan fahanno waxaan sameynayna maxaa ka imaanaya ayaantaana saa ka warqabtaan hadda wayna ku soo badatay qofkii dhintaba oo qof la dilaba dhowr maalmood baa la haysanaya wax sax ma wax shariicada waafaqsan ma waa wax baadil ah waa waxaan haboonayn waa waxaan cidna u haboonayn